ودي جوجا هدي أي نعبوري كران لما فكر كي لا يهون إستاي كران هل كان فجأة عن جوجلاه إنه يبادر معلم هذه يكون على قتاجنا حصلوا في اللذة كسب حياة كلنا أي محمد عبد الله فرماجة أيام لهني كاميرا في عنيد كسب في اللذة وعلى سوق صباح لما تين عن دكتور حسن شيخ متديسة لما تمدحلي كيسي الرب ضل كيلو حكومة ملو عن دين مدلم عيسى دكتور لماذا وعن جوجلاه هل كان إسكويس كفاجة حي مقالة مقدسه dadkan waxay u soo baxeen inay muujiyaan shucuurtooda iyo dareenkooda ku aadan diidmada kaliya taliya Xasan Sheikh oo waxa tahay abaal-laawe madaxweyne Shariif oo shalay hilka kugu wareejiyay adigoo hal busoolada wadan ee mar labaad farmaajo kaaga hiiliyay inaad madaafiic ku weerarto aqbali maylo waxa tahay abaal-laawe tilaabada aad qaadayso guracana waa mid Soomaaliya ku kala tagayso mana ahan mid lagu doortay ma ahan dimuqraadiyad ma ahan mid dalkan aad ku sii joogi karto waqtigaagu waa dhamaaday filada ka soo bax waqtigaagu waa dhamaaday ee filada ka soo bax sharci darro kuma joogi kartid filada weerar iyo xariga dhalinyarada aad u geerinaysa leh lama cabsi gelinayso mudaharaadkana waa sii wadi doonaa dareenkayna si silmiya ayaan u soo gudbi doonaa haddii aad isku dayayso qolada macallimahdii ee dadka ku caburisane bal ha loo yimaadin waana kan annaga fagax joogno ha loo yimaadin haddii ay nacaburi karaan ama fikirkay la hor istaagi karaan halkan fagaxan joognaa loo yimaado macallimahdii ku caada qataashna ee dimuqraadiyadda diidan dareenkayna ayaan ka hadlaynaa si xurriyada ayaan u hadlaynaa aad ayaan sheeg uga dhidhimaynaa falalka guracada ee madaxdii hore dalka mudane xasan cali khayre iyo madaxweyne sheekh shariif aad ku weerartay waana mid aan la isaga hari doonin xasanow tan ku saxamayso ka soo bax filada xasanow filada ka soo baxaya ku leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan dhahnay kamera fi عنيد ka soo bax filada halkan isugu yimid dadweynaha Soomaaliyeed oo ka caliisan dowladda Soomaaliya caburta ay ku hayso oo diidan mudaharaadka silmiga ah oo yaani dadka aragtidooda ay kaga hadlayaan madaxweyne waqtigiisa oo dhamaaday waxaad ballan qaaday Soomaaliya heshiis dunida heshiis la maantana waxay maraysaa ragii shalay oo shamsiga kugu qaaday madaxweyne adiga ka horeeyay ee kaaga hiiliyay ee ku doortay codkooda ku siiyay inaad ku weerarto howlwadaag iyo Cabdicasiis madaxweyne talada ummadda Soomaaliyeed dhexda soo dhigay laga tashado hana laga heshiiyo wixii masiirka ummadda Soomaaliyeed ah doorashada qofkii codka oo aad sheegayso annaga ayaa ka mid noqon dhalinyarada u tartantay kuraasti dadkii loo codeeyay xataa annaga codkii la siiyay ee la doortay wala musuqmaasuqay wala misna rakala tuulisiin madaxweyne talada ka dhig halkan ila midbaysa laga rabaa ina oday Soomaaliyeed noqotaan rabaa ina dalka wax badan xiriirsan laga rabaa ina ummadda u talisan rabaa in madaafiic habeen saddex loo garaaco waa ayaan daro mana ah wax laga filay marka waxaan kugu baaqayaa madaxweyne dalkan ina midbaysa madaxweyne adii ka horeeyay oo kula dardaarmay fariin buu ku soo diray wuxuu ku leeyahay midna madaxweyne maanta libax ayaa tahay بريد بسد عياد نقوليسا ما أنت إن سفارة عالمك أو هذاك الصومالي أي صوف فريقيان أو نسيسكي حقي عدو المجال كويرتي بالعوينة ورا الشيخ شريف أحمد رئيس المسؤولية ورحس على غيره أو ذا شيء دعمك والله هذا إيه كذا يقولان هذه عياد صبوة وهي هذه تنسيسو أو الصومالي لا تاي وعتاي بالعوينة كان